السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa diyaarinaynaa cashirka loogu talagalay dadka daykeerada iska leh rabaan inuu qof la shaqeeyo oo la dhaho subpool facility orientationka loogu talagalay waa qofka daykeerka iska leh ama meesha ka shaqeeya ama meesha hogaamiyaha ka ah oo raba in lala shaqeeyo training ay qaadanayaan waaye insha allah trainingkana galaynaa hadhown idinkana kolley online ka fiirsan doontiin. Okay, waxyaabaha maanta ka baran doona galaaska muxuu yahay sida loo diyaarin lahaa qofka daykeerka iskale soo meeshiisa ugu diyaarin lahaa si qof substitute uu imaado uu la shaqeeyo. Waa maxay waxyaabaha looga baahan yahay ama ay rabaan in la ogolaado intuusan qofka substitute-ka aadan helin maxaa lagaaga baahan yahay waxyaaba lagaaga baahan inaad samaysid sidee u heli kartaa qof substitute kula shaqeeyo. waxyaabahaas waxyaabaha maanta ka wada hadli doono. Marka wax kale laga hadli doonaa maxay tahay iyadana waa maxay substitute-ka, waa maxay qofka xirfadda wax u leh wax siduu eg yahay. tan saddexaad oo ah waa maxay mas-uuliyadda saaran imagine ama qofka facility-ga daycare iska leh ama qofka la shaqeynaya oo substitute ku noqonayo. qof walba mas-uuliyadda saaran waa ka wada hadli doonaa. horta marka ka hadalno substitute-ku wuxuu yahay wuxuu kasoo aasmay asalkiisa DCYF oo ka yimaaday oo ahayd agency-ga oo dadka daycare-ka laysanka leh iyo contract-ga imagine la leh dadka u dhexeeya waay marka 2015 la aasaasay oo la ogolaaday dadka LHF ka mid ah inay isticmaalaan lacag dhan 100 milyan si oo dadkaas waqti loogu helo qof kula shaqeeyo si qof oo kula shaqeeyo adeyn waxyaabaha u baahanta markaas aad samaysatid. imagine marka waxaa la aasay imagine marka 2016 si dadka waxaas ay ugu caawiso imagine la aasaasay 2019 unionka oo qaybta waxyaabaha u dooda maxay sameeyeen marka in la kordhiyo isticmaalidda substitute-ka aan kaliya loo isticmaalin dadka level 2-ga laakiin hadda maxay ogolaadeen marka in la siiyo qof walba oo daycare u furan yahay 5 beri oo dheeraad ah oo wuxuu rabo ku samaysan karo qofka. laakiin qofka muxuu haysan karaa inuu qofka markaas yahay waa ilmo ceer ah ama dowladda ay lacag ku siisay ilmahaas inuu haywaasi programkaas uu u qalmo. maxaa laga hadlaa marka waa maxay professionalism-ka laga hadlaya marka professionalism-ka laga hadlaya maxaa marka qof walba marka professional lagu dhaho maxaa macnaheeda marka wixii aad cilmi u leedahay ama xirfad u leedahay wixii aad ku fiican tahay waay marka wixii aad soo baratay wax ku fiican aad noqotay qofka waxaas waa ku fiican tahay marka hadda camal idinkoo kale marka daycare tihiin waqti badan aad ku jirteen wixii professional ku noqoteen waay marka wixii khibrada u leedihiin xirfada u leedihiin wixii dhan waa fahamsan tihiin waay marka qofka lagu soo diraayo muxuu noqonayaa marka qof wixii soo bartay diyaar inuu kula shaqeeyo. marka professionalnimada maxay ka wadaa marka qofku wixii inuu yaqaano ama uu kasaayo ama uu fahamsan yahay wuxuu sameynayo. marka maxaa la isweydiinaya marka waa maxay mas-uuliyadda imagine saaran marka tan ugu horeysa dhinaca ka hadalna substitute qualification-ka daalaad waxyaabaha looga baahan yahay qofka substitute-ka maxaa looga baahan yahay inaan hubino qofkan wuxuu soo diray iyo waxyaabihii uu soo sameeyey inay sax yihiin. kadib maxaa la sameynaya marka maxaa ku xigo in la isku xiro qofkii uu la shaqeyn lahaa iyo qofkii dadka la shaqeyn lahaa labada qof in la isku xiro oo labadood la fiiriyo qof walba wixiisa inay diyaar yihiin qofkaana daycare-kiisa diyaar u yahay inuu qof la shaqeeyo oo la ogol yahay shuruudihii kasoo baxay qofkaan raba inuu qof la shaqeeyo isna shuruudihii inuu kasoo baxay labadood markaas la isku xiro. kadib maxaa la fiirinaya qofka facility-ga iska leh inuu kasoo baxaysa mas-uuliyadda ka saarneyd inuu u qalmo programkan substitute-ka inuu soo galo si oo looga bixiyo saacadaas qofka oo la shaqeeya lacagaas la siiyo. tan ugu dambeysa oo sida oo shiftiga loo samaysan lahay iyo sidii qofkaas lacagtiisa loo seen lahaa in laga warhayo iidan marwalba mas-uuliyadda imagine saaran waa marka qofku la shaqeeya lacagtiisa u siin lahayn sida loo hubin lahaa shiftiga saacadihii in lasoo sameeyo qofkan loo soo diray iyadoo qofka saacada loo sameyn lacaga ma la siin karo marka maxay rabaa inay hubiyaan in qofkaas saacadihii uu sameeyey si lacagtiisa loo siiyo. taas mas-uuliyadda imagine saaran waay marka dhinacaana waxaa ka hadlaynaa marka mas-uuliyadda saaran qofka daycare-ka isaga iska leh mas-uuliyadda saaran facility-ga tan ugu horeysa maxaa marka inuu ogolaado horta aqriye la ogolaado sharuudaha iyo waxyaabaha la socdo
ay yihiin qofkan kula shaqeynaya markuu meeshaada joogo in aad mas'uul ka tahay waxaa meesha ka dhacay qofkaas markaas adigu kula shaqeynaya qofkaas intuu meesha joogo in aad mas'uul ka tahay aysan ahayn imagine ay soo dirto qofka hadduu wax sameeyo imagine uu qabsanaa ma noqonayso marka marka inuu noqdo qof markaas markuu meesha joogo badanaana dadka waxa la shaqeeya qof walba qof uu isa keensado waay way yartahay dad la shaqeeyaan qof kale loo geeyo way yartahay badanaa ma dhacdo aan qof walba adaa ka haysatid qofkaaga aa keystale lagu sameeyo wixiisana lagu diyaari mar qofkaas intuu meesha kula joogo adaa diyaare qofkaas scheduleka uu samaysanayo shaqada uu kula shaqeynayo adaa mas-uuliyaddaas ku saaran tahay qofkaas saacadaha uu kula shaqeynaya inaad samaysid intuusan kula shaqeyn ka hor inaad saacadaha u samaysid qofka si loo ogaado qofkaas inuu kula shaqeynayo laakiin mar uu kula shaqeeyo kadib inaad dhahdo qofka maalin hebel uu ila shaqeey saacadihii mu gelin badanaa gadaal ma loo laaban karo marka intuusan qof kula shaqeyn ka hor inaad shiftigiisu samaysid marka mar walba maxay rabaan inay hubiyaan inaad saacadihii samaysay qofka isagana uu galay uu sameeyo oo hubiyay saacadihii inuu maanta kula shaqeynayo confirm oo ka dhigay kadib labadiina awood ogtiin marka schedule waqtiga shaqada bilaabanayso waqtiga dhamaanayso marka maxaa loo baahanyaa saacadaha markaa qofku samaynaysa inaad u samaysid 3 beri ka hor inaad usii samaysid qofka saacadihii oo ogyahay qofkaas maalin hebel inuu kula shaqeyn rabo tan kale liska rabo maxaa waaye qofka markuu ku imaado inaad rotation u qabatid markuu meeshaada ka shaqeynaya qofka inaad rotation u qabatid oo hal saace waxyaabihii meesha yaalo si wada programka yahay waxdha inaad qofka u sharaxdid kadib oo wixii aad bartid qofka wax walba meesha u baahan yahay si ugu hadlaya heli karo inaad taas u samaysaa lagaaga baahan yahay tan ugu dambayso saacadihii inaad hubeysid qofka inuu kula shaqeeyey maalin hebel maalintaas wixii lagaaga baahan yahay markaas lagu weydiiyo scheduleka inuu sax yahay qofka aan kula shaqeeyey oona hubiyey inaa hubisay inuu qofkaan kula shaqeeyey si lacagtiisa loo siiyo mas-uuliyaddaasna qofka facilities kale ay saaran tahay marka checklistiga maxaa haysan mid la samaynayo oo la samaynayo qofka daycare excel uu samaynayo oo ka diyaarinayo qofka markuu kula shaqeeyo aa ka diyaarinaysa qofka wixii aa fahansiisay wixii uu fahmay waxyaabahaas inaa ka samaynaya marka checklistiga adiga iska leedahay waan lagu soo diraa markaas waa helaya warqadan markaas hadhow si aa u samaysatid pagekan kale aa ujeedid muxuu ka hadlaya marka qofka markaa u sheegtid meelaha rotationka aa siisid meelaha ay daawada taal camal markaa u sheegtid meesha signingka laga samaynayo meesha first aidka u yaalo haddii emergency oo loo baahaya exit iyo waxaas meesha ka bixi lahay baalka dabdamis meeshuu yaalo scheduleka meeshuu yaalo waxaasna markaa u sharaxdid waa jeegareyne locationka u yaalna waa ku qoray marka si qofka hadhow waxaan u haysto hadhow wax hadda u baahdo location meesha u qoran tahay haddii medicationka camal ay tahay locationka haddaa u sheegtid hadduu meesha uu quful leeyahay ama code hadduu leeyahay inaa u sheegtid hadduu furo leeyahay fura meeshuu yaalo inaa u sheegtid waxaana inaa meesha ugu qortid qofka oo haysta markaas hadhow hadduu wax u baahdo si uu raadsan karo wixii marka qofka oo kula shaqeyn rabo substitute-ka noqonayo mas-uuliyadda laga sarrabaysana mas-uuliyadda saaran waa maxay qofka markuu kula shaqeynaya inuu professionalnimo noqdo qofka oo waqtiga ilaaliyo inuu u dhaqmo qof dabeecad wanaagsan camal inuu communicationkiisa fiicnaado qofka markuu meesha joogo inuu professionalnimadaas laga arko dankan maxaa looga bahaya qofka inuu noqdo qof ilmaha ka taxadaro ilmahaas wanaagooda ka taliyo iyo environmentiga uu joogo markaas inuu qadarin u sameeyo qof walba cunug walbo meesha joogo inuu qadarin u sameeyo tan ugu dambayso isna report qofka in laga rabo inuu sameeyo websiteka uu gali karaa hadduu u baahan yahay inuu warqadda ka helo ama waa loo soo diri karaa markaas hadduu weydiisto haatan ayadan reportka saan u eg tahay oo qofka oo soo qoraa qofka substitute-ka soo qoraayo substitute-ka marka maalintii markay dhamaato waxaanuu soo qoraa marka wixii dhacay si ay u dhaceen waxyaabihii uu sameeyey kulli wixii noo soo qoraa marka inaa meel dhigatid marka warqadda markaa samaysid inaa meel dhigatid maxaa laga hadlaa marka waxyaabaha u qalantid iyo lacagaha u qalantid aa laga hadlaa marka waxyaabaha uu u baahan yahay qualificationka ay u baahan yahin dadka substitute-ka waxaa looga baahan yahay qofka facility-ga si uu u qalmi lahay inuu substitute isticmaalo sidaa u raadin lahayd haddaa u qalantid in lagula shaqeeyo programka subsidiga shiftigaasha daarti inaa samaystid iyo maxaa jirta qayb la dhao iidane private pay option haddaad qofka inaad lacag siisid oo rabtid inuu kula shaqeeyo wuu jiraa isna programkaas marka waxyaabaha looga baahan yahay qofka substitute maxaa waaye marka qofka substitute inuu haysto star id number inuu qofka 18 sano ka weyn yahay qofka inuu background jeegiisa soo maray qofka inuu childcare basic 30 hour class ka soo qaatay documentiyada kale looga baahan yahay inuu imagine uu soo diro maxaa waaye qaybtan qor qaybta meridka oo gelinaysid waa meridka ka arki karnaa qaybtan kulli markaa geliso waa ka arki karnaa qaybta kale imagine uu soo diraysaa maxay tahay marka CPR-ka first aid-ka inaad soo dirtid iyo plasma pathogen-ka inaad soo dirtid
food handlerka kaarkaaga inaad soo dirtid waana maxaa loo baahan yahay kulli inaysan dhacsanayn kulli waqtigooda uu yahay inaysan weli dhicin kuwaas inaad soo dirtaa laga baahan safe sleepka TB testiga inaad soo dirtid iyo sawir teesar camal ama sawir oo ID ahaan lagu samayn karo baaja lagu sameynaa inaad soo dirtisane marka qofka substitute marka formkan hoos uu soo diri karaa warqadiisa wixiisa dhan meesha hadhow marka video fiirsanaysa waa arki kartaa ama waa qori kartaa qofka hadhow formkaas uu raadina wuu soo gelin karaa wixii dhan uu u baahan yahay kulli inuu soo diro marka meelaha trainiyada oo qofka ka raadsan kara qofka substitute ka artin uu kula shaqeeyo meelaha training oo ka raadsan kara lagu sheegaa maxaa la marka hadduu 30 hour u baahan yahay imagine aad bixiso hadduu safe sleep imagine report u baahan yahay website-ka oo DC web training oo qaadan karaa CPR first aid iyo plasma pathogen and dorab imagine aad bixiso oo qaadan karaa hadduu TB test raadinayo inuu isbitaalkiisa aado waayo ama Department of Health inuu waco waayo hadduu hor u qaatay kan ugu dambeeyo oo food handlerka isina Washington State Department of Health oo isna ka qaadan karaa online ka laga qaataa isina meesha ka samayn kartaa marka mid walba uu sharaxa meesha ka heli kartid hadda kuwaas imagine saddex waxaa ka heli kartaa galaaska 30 hour-ka CPR first aid iyo plasma pathogen DC web training maxaa lagaaga baahan yahay inaad ka qaadatid ayagana hadda way bixiyaan childcare basic ayagana way bixiyaan iyo safe sleep-ki Monday report-ka ayagana way bixiyaan warqadda TB testiga meesha aad caafimaadka ka heli kartaa ama qaybta Department of Health-ga wici kartaa ayagana waa ka soo heli kartaa iyo food handler kaarkiisina departmentiga ka soo heli kartaa qofka facility eligibility-giisa marka qofka facility waxyaabo uu qalmo qofka facility inuu ahaado waa qof laysan leh oo laysankiisana uu fiican yahay aanan wax qalad lahayn si uu oo programkan uu ugu qayb qaato waxyaabaha kale iska baahan yahay oo qofka uu qalmo maxaa ka mid ah si uu programkan u soo galo marka waxyaabo kale lagaaga baahan yahay inay jiraan waa laga yaabaa lagu weydiiyo hadhow lagu dhaho si programka soo gasho waxyaabahaas caddeemahaas u baahan inaad soo dirtid marka waxyaabaha lagaaga baahan yahay kulli ama haddaad qof substitute inaad raadisid linkigan hoosaa ku dhufan kartaa ama waa koobiyen kartaa waa qori kartaa meesha internetka u qori kartaa isna ka raadin kartaa qaybta marka private pay marka laga hadlayo maxay leeyihiin marka private pay maxaa waaye qofka adaa lacag siisanaysid waaye marka adaa halaha rabtid aad lacag dhigi kartaa saacadii halihii markaas aa rabtid inuu qofka kula shaqeeya u sheegay halaasoo lacaga rabaa inaa qofka siiyo qof ayla shaqeynaayo imagine marka ma rabto inaa adi lacag ayagaa siisid marka qofka adaa la xiriiraysa qofka ala artaa siinaya wixii aa ku heshiisiin qofka siinay marka qofka facility-gaana mas-uulka markaas qofkaas lacagta u siin lahay inayna ahaato waayo wax minimum wage-ga ah aysan aanin wax ka yar lacagta loogu talagalo qofka inuu shaqeeyo statekan halihii ay tahay inaa qofka siisid haddaad arti inaad saacad aad samaystid ama shaqo aa abuurtid aa qof shaqo u samaysid maxaa u baahan tahay marka ama qof inaa qof staffkaaga xanuunsanaa booski jirtaa inaa bedeshid ama schedule maalintaas inaa off qaadata artaa ama shaqaalihii markaas kugu yar qof aa u baahan tahay markaas qof substitute waa soo dalban kartaa adhays qofkaas anaa lacag siina qof substitute aa u baahan in laisoo diro kan kale maxaa waaye si aa u caawisid inuu koro meeshaan dad badan ee shaqo ka helaan qof dadka substitute badanaa jiro oo shaqo ahaan u isticmaalo kaliya substitute-kan marka haddaa rabtid marka dad inaad raadisid meesha waa ka heli kartaa dad khibraddii u leh oona raba inay hor u socdaan sida shiftiga loo samaysanayo marka website-keenaa geli kartaa saacada shifti ka samaysan kartaa marka hadda calaamadu way ku tusaysaa meesha oo shiftiga laga samaysanayo markaa ku dhufatid isaa kusii tusaa waxyaabaha looga baahan yahay haddaadan link marka website-kan aa geshid linkiga aa website gelaysid waa kana kan le qore meesha google-ka qore meesha yartaa qori kartaa oo internetka wuu kuu soo qabanaa markaas kanaa qore wuu kuu soo qabanaa waxna markuu kuu soo qabto hadhow muxuu ku weydiinaa family link ID oo haddana laysan numberkaaga haddii laysan warqadda laysan markaa fiirinaysid dhinaca bidix oo kore numberka ku qoran waayo dhinaca midig oo kore maaha dhinaca bidix oo kore waayo marka inaa ogaataa lagaa baahan marka shifti kulli shifti walba aad samaynaysid inaad samaysid intuusan bilaabanin ka hor inaad shifti walba samaysid sidaa lagaaga baahan yahay marka qofku intuusan kuu shaqeyn ka hor inaa usii samaysid
marka muxuu ku kala tusaa markaa soo gashid private bay maxay haystaa marka saacado go-an ma haystaa qofka markaa private ahaan aad qofku rabtid saacad ma lagu cayimaya ama laa saacada haystaa ma lagu dhahayo laakiin marka programmada kale isticmaalaysid sida hadda union benefitka oo 5 beri 50 saac lagu ogol yahay 50 saac lagu ogol yahay sanadkii bis toddobaadkoodeeda ilaa bishii 6 maxaa lagu ogol yahay 50 saac 50 kaaga sac seerta u isticmaali kartaa daarad maalin 5 saac isticmaali kartaa daarad 2 saac isticmaali kartaa seerta aad 50 saac leedahay eebel maxay 5 beri aad laakiin hadda 50 saac laga dhigay seerta u isticmaali kartaa daarad 5 saac maalin u isticmaali kartaa daarad 2 saac laakiin 50 ka saac bisa iska leedahay hadda muxuu ku sheegaa marka samaysatid hadda 40 saac samaysatid halay saac ku soorto ku sheegaa 10 saac ku soorto ku dhaha marka halay saac samaystaa ku sheegaa mar walba bisa soo gashid numberka family link ID numberka ay gelisid uu ku tusaa halay saac isticmaashay iyo halay saac ku dhiman oo ku tusaa marka marka sidii shiftiga loo samaysanayo ku sheegaa marka qofka markuu ugu horeeyo oo shift samaysanayo waxay leeyihiin marka ku horeysa day tahay yes markaa dhahayd qoraal soo baxay inaa qoraalkaas akhrisid hadhow ku dhufita hor u socotid waay hor u socotid muxuu keenaa marka meeshaan u keenaa hadaart inaa shift laba maalin shift kala samaystid ama hadda hal maalin aad raadinaysid wuu kala sheegaa multiple shift marta ku leeyahay hadda ha dhahdid wuu ku badinaa marka space badan uu ku siinaa maalmaha kala gashan kartid maalmaha u baanta qofku inuu kula shaqeeyo hadda hal maalin camal aad raadinaysid noo dhahaysin uu ku sheegaa markaas hal maal u samaysan lahayd wuu ku wadaa marka muxuu ku leeyahay marka qof ma haysta aarit inuu kula shaqeeyo haddaa haysta dhahe hadhow qofki star ID numberkiisa ku weydiinaa haddaadan haysan maya dhahe hadhow qofaa lagu soo raadinaa lagu soo diraa haddaa haysta qofkaaga yes markaa dhahe numberka star ID numberkiisa lagu weydiinaa saasa u gelinay marka saasay u socdaan marka haddaa hore saacad u samaysatay maxaa laga yaabaa inuu ku weydiinin kuwaan qaybtan yes markaa dhahe inuusan kan ku weydiinin oo kuu soo gudbiyey pagekaana ku keeno laakiin haddii marka ugu horeysa hataa schedule garaysanaysid inaa wax akhriso ku dhaha hadhow okay dhahe socotid hadda wax su'aal aa qabtid marka emailkeena waa kana waa noogu soo diri kartaa wixii su'aal aa qabtid ama haddaa wax aa rabtid inaad noo soo dirtid ama waxyaabaha u baahanta inaad weydiisid kulli wax walba u baahanta emailkaana kusoo diri kartaa waa lagu soo jawaab hadduu ilaahay idin amaasantihiin ala orientation qaadateen haddaa wax su'aal qabtiin ha hilmaamin inaa emailka noogu soo dirtiin ama xafiiska nambarkiisa soo wacdeen insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته